السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiin mahadsantiin daawashada daawatay muuqaalkan ama furitaanka furteen muuqaalkan haddaba maanta waxaan muuqaalkan kaga hadlaynaa ama kusoo qaadanaa tusaalayaal ama madaxda caalamka qaar ka mid ah oo bal awooday inay ku hadlaan luuqad kale oo aan ahayn luuqadooda hooyo ama waddanka ay xukumaan luuqadda lagaga hadlo iyo weliba qaaran awoodin inay ku hadlaan luuqado kale haddaba waxaad ogaataan in dhammaan madaxda caalamku aanay ku hadli karin luuqado ajnabi ah oo aan ahayn tooda hooyo laakiin qaar ka mid ah madaxda caalamka ayaa ku hadli kara wax ka badan hal luuqad halka qaar kalena awoodaan marka ku hadalka saddex luuqadood haddaba dadku cusub tahay kanaalka saar subscribe soo kale like garee suu gaarto dad badan muuqaalkan waxay la socodsiinayaan anigoo cabdiradiif xirsi haddaynu ku bilowno madaxda carabeed kow maxamed ibn xasan kalixaad ee morocco waxaa boqorkan reer morocco ee jira 57 sano u awoodaa ku hadalka afar luuqadood oo kala luuqadda carabiga faransiiska isbaanishka iyo weliba luuqadda ingiriishka waxaanu boqorkani PhD ku diyaariyay jaamacadda Nice Sovio Antipolis ee ku taala faransiiska sanadii 1993 labo amiir tamiim ibn maxamed al thani waxaa amiirkan reer qadar ee jira 41 sano ku hadli karaa saddex luuqadood oo kala luuqadda carabiga ingiriishka iyo weliba luuqadda faransiiska waxaanu waxbarashadiisa kusoo qaatay ingiriiska isagoo sanadii 1997 ka qalin jabiyay maxadka Sherborne sidoo kale waxa uu 1998 ka qalin jabiyay kulliyadda Royal Military صدح عبد الله بن حسين كالبادي أردن وحبور غير أردن يجري لحدن كسنة ووضع كهذا كصدح لغات وكلا لغات عربية إنجليزية ولا لغات فرنسيسكا وحنا حبرشيس كسو وضعات إنجليزية أمريكانكا سو دوكسي سو سكاب لعبة دوكسي سانت أيدمون كدي وحا وقالي ديرفيل وح كولج سو هيركسي جامعين قالي جامعة تشارت تاون إيكوتا لأمريكانكا sidaasoo kale waxaa jira madax carabeed oo aad u badan oo awoodo ku hadalka wax ka badan hal luuqad waxaana ka mid ah madaxweynaha Masar Cabdilfataax Siisi boqorka Baxrayn boqor Xamaad ibn Ciisa madaxweynaha Lubnaan Michel Naciim iyo weliba madaxweynaha Ciraaq Burham Saalix haddii intaa aan kaga gudbino madaxda carabta bal sidoo kale aan eegno madaxda caalamka kow Vladimir Putin waxa uu qaysarka reer Ruushia ee jira 65 sano u awoodaa ku hadalka saddex luuqadood oo kala luuqadda Ruushka Ingiriiska iyo Jarmalka isagoo waliba luuqadda Jarmalka aad u adeegsan jiray 8meeyadii intii ku guda jiray hawshiisa dababaarista iyo basaaska labo Justin Trudeau waxa uu ra'iisul wasaaraha reer Canada ee jira 46 sano uu awoodaa ku hadalka laba luuqadood kaliya oo ah luuqadda Ingiriiska iyo tan Faransiiska oo ah luuqadiisa hooyo saddex Recep Tayyip Erdogan waxa madaxweynaha reer Turkiga uu awoodaa ku hadalka hal luuqad oo ah luuqadiisa hooyo walow ay jiraan munaasabado ka dhexeeya dhowr kelmad oo Carabeed sida munaasabadaha ku soo dhaweeyay madaxda Carabeed laakiin sida saxda ahi weyn madaxweynahani uu ku hadli karo luuqadiisa hooyo oo kaliya yacni waa luuqadda uu sida wacan ugu hadli karo ma jirto luuqad kale oo si dad ah ma si fiican ugu hadli karo haddaba intaan mowduucan ku jirnay waxaan ogaanay in maanta madaxda caalamka joogta aanay wax ahmiyad ah siin barashada luuqad kale walow qarniyadii hore sidan ka duwaneed oo qofku intaan Suudaan noqon ama aan boqor noqon intuu amiirka yahay la sii bari jiray luuqado badan saadho marka uu noqdo Suudaan ama boqor uu wanaagsan xiriirka u leeyahay dowladaha ku wareegsan laakiin hadda wax badan baa isbedelay waxa la yiraahdo qalab wax lagu turjumi karo waxa la dad luuqadaha si fiican isku turjumi karo translators ah oo madaxdii hadalka u kala qaadi kara tusaale ahaan madaxweynaha Mareykanka soo maray tirada guud waa 46 madaxweyne waxa luuqad qalaad ku hadli karayay 16 kaliya halka Joe Biden iyo Trump midkoodna aanu ku hadli karin luuqad qalaad intaas ayaan kusoo koobaynaa mawduucani maanta waxay ka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh